الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدنتا فرداء حفلة أتبان السلام يا إتراد بدن وحن جعلها إن غيبتا عن كيقرنا هي دراسة حلقة إديكاتيو سيدا أين الله ورسوله نريد أن نكون والله هي سيدا بقى واحد اسمه هيا لوالدنا أو كده ترتب الرسول نظام وحوي نظام كابيتاليستا نظامنا وحوي نظام ديمقراطي أنت بدل هدي أراكتو أمة أنا أقول الله يبني هذا الشوق أو كبقة المدحدة أو أنا رأيي البنكري أو أنا أرتدي العبيد وأمتك هوسنو كابيتاليست إنعم حتى أراكتو أمة حرية النور أو هذي كرا أو شيء كرا وحدي قبلا أو كدوري كرا وحدي هالدور الكيانو أو واحد كستر أو قرر كود السامين كله سؤال قليا سي أي أهلا جواب الصحراء يوحي بوها بوقر كود وما داسنا وما قلبي حركة أو ديمقراطية كله سيدا صوتها ومدة سوماليا waxay khibrad u leedahay labadaba oo waxay soo martay kariitaris si adag ula dhaqmay oo xasuuqay oo aan ogolaanin inay xorriyadeeda isticmaasho maxamed siyaad barre iyo dawladii Soomaaliya markii ay Soomaaliland ka tirsanay cadaadis xoog leh ayaa ummadda ku soo dhacay ummadani halka dheer bay gashay way dagaalantay naf iyo maalba way hurtay waxaan qabaa marka laga tago in ay xornimadeeda la soo noqonaysay qodobka labaad ee u halgantayna wuxuu ahaa in ay hesho xorriyad hadal dimuqraadiyad iyo inay masiirka ummadooda tarku yeeshaan maanta oo aynu halkan Soomaaliland 25 sannadood xornimada ku naaloonay oo ay ummadda Soomaaliland samaysatay dastuur qeexaya in si xor loo noolaado oo dimuqraadiyad lagu noolaado dastuur qeexaya in saddex xisbi qaran oo micnahoodu yahay institutions ama hay'ado lagu doodo ummadda Soomaaliland ay u samaysatay si ay ra'yigeeda iyo garaadkeeda u cabirto waxa ay maanta taagan tahay in ummadda Soomaaliland la yiraahdo laba doodi karo oo laba hadli karo dhinaca kale aqoonta diblomaasiyadda oo aan anigu ku sameeyay masterskayga koobaad meel naba kagama jirto inay dalalku iscaashaqaan ama ay isjeclaadaan qaladkaas maanta ay qolada xukuumaddu inoo akhriyayso ee ay leedahay dalka imaaraadkeedu isjeclaanay waa qaladkii 60kii ummadda ku gashay 60kii ummaddaydu waxay caashaqday wax la odhan jiray shantii Soomaaliya dabadeetana maanta qarni wax ku dhow qaladkii maalinta jacaylkii aan qaaday aan ku galay baan u halgamayaa sidaan ka soo gaban lahaa maantana mar kale in la yidhaahdo dal baynu isjeclaanay meesha kuma jirta baan leeyahay adduunku dalalka macaamilaya waxay ku macaamilaan dano iyo dana isdhaafsi wax jacayl la isku siiyaa dunida ma jira waa hubaal midhaas qof kasta oo garaadkiisu shaqaynayaana waa ku kalsoon yahay inaan dalbada jacayl wax ku siin haddii jacayl wax laynagu siinayo Soomaaliyeed xaqeedii ka helin markaynu u tagnay haddii jacayl wax la isku siinayo imaaraadka diyaaradihii ummadeeda lagu duqeeyay muu soo direen haddaba sidaas ay tahay daraasadda halkan xisbiga wadani muddada ka shaqeeyay waxay ku qontontaa dimuqraadiyad iyo dood iyo in la wada hadlo iyo in la faguro qarankayga wixii saameyn ku leh erayada ku qoran daraasadda taas bay ka jawaabaya bal waxay ila ogataa laba qodob oo ka mid ah daraasadda oo aan anigu doonayo inaan halkan idinkala wadaago ummadayda waxaa lagu yidhi saldhig military baa laydin keenayaa oo dabeetana waa barwaaqoobaysaa daraasaddanina waxaa wax ka duwan bay sheegaysaa oo waxay qeexaysaa runta iyo xaqaa'iqa saldhigga militariga
ummaduna ilaa ay saldhig military fahamto ma qaadan karto mana diidi karto. haddaba saldhigyada military waa deegaan ay ciidan shisheeye ka samaystaan dalka oo ay tasarrufkiisa iyo awoodiisa iyo waxa ay yeelayaan iyo waxa ay doonaan ay ka samayn karaan. waa dhul iyaga u dawrsan oo aanad adigu faragelin karin. waxaa aad loo xusaa qodob yidhaahdaa xataa madaxweynuhu ma geli karo. waa run saldhigga military ee berbera laga siiyey imaaraadku dalka imaaraadkay ka tirsantay 30 sannadood ee iyaga la siiyey ma garan karno wax gudihiisa ka socda. saldhigyada ciidan waxa ay saameyn ku yeeshaan bulshada ku nool dhulkaas. saameyn maamul bay ku yeeshaan, saameyn anshaxumay ku yeeshaan, saameyn deegaan bay ku yeeshaan, hubkay ka iibiyaan bay ku yeeshaan oo dhaqaale ka sameeyaan. saldhigyada ciidan adduunka waa 3 nooc. waa saldhig ciidan oo dal keliya ciidankiisa keeno. waa ka labaadoo waa saldhig ciidan oo ay isugu yimaadaan laba ciidan oo kala duwan oo aan ka kala socdo dalal kala duwan. qaybta saddexaad waa saldhig ciidan oo ay isugu yimaadaan ciidan huwana oo ka socda dalal tiro badan. ilaa hadda xukuumadaydu may sheegin saldhigga berbera saddexdaa ku yahay. ma hal ciidan baa degaya, ma adduunka oo dhan baa degaya, ma laba dal baa degaya, lama sheegin. ciidamadu marka ay saldhig samaystaan waxay u isticmaalaan dhowr shay oo dhowrkuba liddi ku ah xornimada ummadda. waxaa ka mid ah basaasnimo inay ka fuliyaan. waxaa ka mid ah inay hubkaysitaan day ku tijaabiyaan saldhigga iyo deegaanada u dhadhow. waxaa ka mid ah inay hubka khatartiisu badan tahay ee dalkoodii ka soo waarideen ay ku kaydiyaan. waxay ka fulin karaan duulimaan markay ugu yar tahay ummadda yaman ku nool lagaga duulo. sidaasi la mid ah saldhigyada ciidan qaarkood dalalka ay ku yaalaan colaad iyo dagaal iyo dhaqan xumo iyo deegaanka waxyeelaan intaba oo horseeda. waxaa Somaliland u muuqato oo aan shaki ku jirin saldhigga military inuu yahay mid colaad oo lagaga duulayo dalka yaman iyo nolosha ka jirta. dalalka shisheeye ciidamada ka imanaya waxay abuuraan baqe iyo culays iyaga oo tababara kooxa argagixiso oo dalka ay ku yaalaan ka fuliyaan falal argagixisnimo si dalkan ay joogaan u aamino ciidankani inuu nabadda dalka ka jirta qayb ku leeyahay oo ay ugu tiirsanaadaan oo ay ula joogaan. saldhigga ciidan intaa kaga baxo qofka Somaliland ku nool intaa markuu fahmo waxaan ku kalsoonahay inaanu rabin waxa qeexitaankan inuu dalkiisa yimaado. qodobkayga labaad aan isbarbar dhigno saldhigga ciidan ee berbera laga samaynayo iyo saldhigyada ciidan ee adduunka ka jira. weliba adduunka la tegi maynay dalkan Jabuuti ee xuduudda wadaagno ayaynu tegayna. markaa waxay noo soo baxaysa markaynu isbarbar dhigno ma faa'iida ku jirta saldhigga berbera mise waa ku khasaaray. adduunyadana saldhigga military iyo waxyaabaha kale la midka ah horaa loo soo tijaabiyo inoogama baahna inaynu maanta inagu baranno. se waxay inooga baahan tahay dunidu waxay dheef iyo dhibka kala kulantay inaynu inagu tijaabino. dalka Jabuuti waxaa ku yaalla saldhigyo ciidan oo tiro badan. laba ka mid ah ka soo qaadanaya dalka Maraykanka oo ah dalka adduunka ugu quwadda weyn. dalka Jabuuti wuxuu ku leeyahay xero ciidan oo Lebanon la yidhaahdo magaceeda. xerada ciidan maaha madaarkii Jabuuti bankeena Giriyaadoo kale oo ay iyagu isteen weeyeen marka koowaad. marka labaad sanadkii xeradaas waxay ku karaysan tahay 360 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. dhinaca kale 70 bilyan oo doolar ayuu Maraykanku sanadkiiba kaabayaasha dhaqaalaha dalka Jabuuti ugu talagalay inuu ku maalgeliyo. dalka China sidoo kale wuxuu ku leeyahay saldhig military. dalka Jabuuti kaabayaasha dhaqaalaha 10 sannadood oo ay saxeexeen heshiis saldhig ciidan ah waxay dalka China ugu talagashay inay Jabuuti ku maalgeliso 12 bilyan oo doolarka Maraykanka.
hadda milyan maan odhan waa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaa ka mid ah 5 dekedood oo kuwa casriga ah inay 10 sano u dhisto marka ay halkaa joogto waxa ay reer Soomaaliland qiyaasi karayaan ama ay isweydiin karayaan maxaa inaga inoogu jira saldhigga berbera qodob kale muhiim ah aan xuso dalka Djibouti madaarkeeda cidnaba kamay karayaan saldhig ciidan kamay dhigin ciidan lama degana laakiin saldhigyada ciidan ee Djibouti ku yaala dhammaantood waxa weeye dhulkii banaanaa ee Djibouti lahayd oo ay dalalkaasi maalgashadeen ilaa hadda lama garanayo Soomaaliland waxa ku jira xukuumadeeda inama yara waxa saarin ku jira waxa si dalal laga soo xigtay warbaahinta caalamiga ah in 1 million 1.2 million US dollar ay sanadkii in siinaya oo micnaheedu yahay bishii $100 baynu qaadanaynaa oo u dhiganta baqaar suuqa ku yaala inta ku tiraysan xogta aan akhriyay ma aha mid wadan sameeyay waa xog rasmi ah oo laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Al-Jazeera iyo CNN Soomaalidu waxay u jirtay waxa lagu sheegay maanka la kaasho daraasadani inta ay la hadlaysaa waa ummadda Soomaaliyeed oo ay rabto inay fahanto masiirka ummaddan wixii ku soo socda dabeetana ka go'aan gaadho kaasaa la odhan karaa waa dal dimuqraadi ah oo ummaddiisu xor tahay. Wassalaamu calaykum.